imooday madhagahayga dhawaaqan jirin ku dhawaaqay may xasan ma xasan may xasan ma xasan yaa lahaa السلام عليكم دمان أصحاب للباستا والسلام وانيقول للباستا guys صورنا وقت وناسن للباستا انت بلين let's go guys waxaan inaan bilaawno xushaasi waxa weeyaan tijaabi jaceelkaaga runtii barnaamijkani waxa bilaabay ama haatan wada wiil youtuber Soomaaliyeed oo la yiraahdo Ridwan wuxuu joogaa Kenya jooga gaar ahaan Nairobi jooga runtii barnaamijkan dad badan oo fara badan oo Soomaaliyeed barnaamijkan la dhacay wayna ka heleen marka waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo faniskayga oo ugu xiran bartayda bulshada sida Instagram-ka TikTok-ga WhatsApp-ka Messenger-ka iyo Facebook-ga inta way inay soo qoriyaan lilbaaste barnaamijkan adaa ku haboon waxay leeyihiin barnaamijkan wuxuu ku haboon yahay wadanka Soomaaliya in laga bilaabo marka waxay leeyihiin shakhsiga ugu haboon barnaamijkan inuu bilaabo adiga weeyaan aniga markan waxaan go'aansaday anigoo tixgelinaya codsiga faniskayga oo marka meel walba adduunka joogaan ay iga soo dirayaan inaan barnaamijkan ka bilaabo gudaha Soomaaliya fadlan barnaamijkan waxa yiraahdaa tijaabo jaceelkaaga isla galabtan waxaan rabaa muuqaalkan inaan bilaabo isla caawadan oo habeen jimcaha waxaan rabaa muuqaalkan inaan soo geliyo fadlan hadduu ku soo galo muuqaalkeena waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelkeena muuqaalkan aad la gaaraysid commentina ka soo bixisid muuqaalkan hadduu leegtiisu ay fara badato waxay ka dhigan tahay muuqaalkan waan ka helnay muuqaalkan hadduu qarxo ama dad badan ay ka soo ficiliyaan waxaan rajaynayaa inaan tago guud ahaan gobolada Soomaaliya siiba Muqdisho Hargeysa Boorama Burco Garowe Boosaaso Kismaayo ilaa meel walba Soomaaliya degto marka waxaan ka codsanayaa in ka raba kaliya waxa weeyaan subscribe ay gala baqeelina السلام عليكم. عليكم السلام. مقعد صاحب. صاحب مقعي وحلا يراهدا شيني. شنو ما أنت waxaan bilaabaynaa ama waxaan wadnaa barnaamijyada tijaabi jaceelkaaga marka adiga barnaamijkan hore mu daabatay haane waa daawaday iyadoo yar kala wado baan daawaday halkan Soomaaliya in la keenan Kenya ku ogaay Soomaaliya in la keenan horta aad baan soo dhaweynaya sax inaad aad ku dhiiratay qofka u horeeyo deegaanada Soomaalida halkan keena Soomaaliya waa ku aad baad ugu mahadsantahay waana kugu soo dhaweynaya boqolkiiba boqol waa barnaamij loo baahnaa marka kulli adiga barnaamijkan kulli ciwaankiisa waa tijaabi jaceelkaaga marka adiga yaa maanta ku tijaabinaa kulli qoftayda marka adiga qoftaada ama jaceelkaaga manaha ma jaceelkaaga miya mise xaaskaaga waa jaceelkaygi ma jaceelkaaga marka yani qoftan yani intee sano baasho oo socotaan gabadhan 3 years 3 sano ka magaceeda sax noo sheeg Sukayna qurux baa yes moobta si fiican aad u Sukayna markaas adiga maxaa ka taabinaysaa macna waxaan ka taabinayaa inay dacdayto waxa weeyaan xiriirka aan leenahay oo ka dhabiyo haddaan waxaan doonayaa waqtigan la joogo inaan guursado waxa weeyaan diyaar baaban guru ah filanaysaa kulli yahuud waa guul waxa weeyaan waa iska mataqaanaa gabar kunin bay shoorisay baa leeyahay koona waa ka raacdaa waxay an kala kulana waa arkaynaa marka dareenka lacala soo noqon doona hadii lacala kugu dariso ama hadii ay ku yeesho dimmalade haddii hadda igu dayriso waxay yiraahdeen waxa kale la yiraahdo de luka jabmayo waxa weeye shinahaygii baan hore uga soconaya haddii kale oo macnaha mataqaanaa waxa kale la yiraahdo ay soo dhaweysto mataqaanaa ay runta ka sheegtana de waa wadanaya halkaasaan ka wadanaya hawshayda jaceelkaaga anaa ku wacaya marka la markii sheeg intaas miyaa فرليح كل يركن شيء يرادا wuxuu taabinaa jaceelkiisa waa arkaynaa wuxuu kala kulmay Hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أبا سكينو سمان يا وايدي والله أوكي سكينو أبا برنامج بعوضنا أو تجاب jaceelkaaga barnaamijkan si leefa wuxuu uga baxayay YouTube kale ilbaasto marka waxa haatan ila joogo wiil baa ila joogo oo yiri yani waxaan rabaa inaan tijaabiyo jaceelkaaga rabaa inaan tijaabiyo marka qofka uma leeyahay adiga حسن يا may asma ma Xasan حسن يا may Xasan ma Xasan yaa lahaa يا ذو قفمة aniga qof ma waxay tahay maxaa deeq ima garanis miya ya سوري بيبي noocaas tamiya
maybe magacyo badan aa meesha igu sabgaraysan marka magacaan aniga kuula baxay maya dhib ma lahan iska daa waxaa samay soo dhan waa ogahay mataqaanaa dhib male yani dhib male waa weligeed waa dhacdaa xiriirkeennii iyo jacaylkeennii iyo macnaha barnaamijkeennii iyo haasaawaheennii iyo wakhtigii quruxda badnaa ee anigu aan soo wada qaadannay qof kale aad macnaha mataqaanaa u hibaysa soo maaha arrinteenni oo qof kale iga doorata maxaan ku caddaynayaa waxaaba sheegaysaa xasan yaa la lahaa aniga xasan miyaa lay dhahaa magacayga waa taqaanaa magacaan anigaa kuula baxay waayo whatsappka magacyo badan igu sabgarayseen marka sa awgeed magacaan anigaa kuula baxay may hadda laga bilaabo aniga adiga isma sheegayno halkaa inooga xir assalaamu calaykum raalli ahow kuyo kow jeer raalli ahow markii hore anaa kuu khaldamay raalli ahow kaalay soo istaag waxaa deeq qoftani haatan waa arkaysaa xasan bay ku leedahay mise maxay horta maxay leedahay noo xasan oo cid la dhahmo garanayo aqaan shiinaana ku magac dheer haddii shiina oran lahayd wax ka aqbal lahaa wax dhan bay ahaan lahayd laakiin waxay tustay waxay meesha ku wado dhan inay khiyaal iyo propaganda ahayaan yihiin filihin dacamal inay jiraysan dhimale laakiin noo maata waa dhacdaa marka adiga haatan maxaa u diraysaa fariina qofta haatan minaha jecelkaaga dirayaa hore u soco haday maxaad ku leeyahay halkeen inuu halka ku wada egyahay aniga ayada baan u dirayaa waxa weeyaan wax wada hadal oo damba ah nama dhex mari doona ma aniga ma ahan baa hebel kala waadiga waxaas anu kama yeelayo marka adiga haatan waa sida dareenkaaga ama shucuubtaada sida maxaad dareemaysaa nee dareenkay wallahi sidaydii ma aha lafna ima jabin caadi baan ahay waa ii jeedaa shiinahaygii baan ahay horaan u soconaya sax habluhuna waa badan yihiin dee waxa weeyaan horaan looga soconaya u jabi may laakiin iyadu waa mahadsan tahay baan leeyahay nasiibku waa kula mid fiican ku sii marka kullee barnaamijkan waxa inaa qayb ka noqotid waxa ku kalafay kullee waxa samaynaa shaki waa xogaa waxa iska jiray wax yar baa iska jiray oo ayaantan waxa kala yiraahdo aan arkay marka wixii baa rabay xogaa inaan kala eedo hadeertan oo ay caddaata leek dhimale waa arki doonaa insha Allah waan aragnay si abdi laftiga waa maqlays inay xasan lahayd maadaama shakhsiga ugu horeeyay tahay barnaamijkan qayb ka noqda maxaa leedahay rag badan waxa jira mutaqaan mootay ama jecelkooda qiyaamo ama wax walba sameeya marka maxaa leedahay wallahi waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed jecelka khiyaanada laga daayo waxa weeyaan jecelka process iyo hab buu leeyahay sida uu ku habboon yahay haloo wado hadii kale wuxuu noqonayaa wax jaantaa rogana sax waa aragnay waxa weeyaan hebel maalin walba waxaasna niyo waxa weeyay qofka uu jecel yahay waa inuu ogaadaa qiimaha uu leeyahay qofka qof jecelaadaan ogaan kara jacaylka iyo qiimaha uu leeyahay waa ka sax ma sabra waa ma assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaah magaca walaal magacaygu xilli caasho waxa wadnaa barnaamij mataqaana loo tijaabo jacaylkaaga barnaamijkan adii hore mu daabatay barnaamijkan hore waa u daawaday waan jeclaa barnaamijkan inaan daawado ama aan ku biiro ama aan ii sheegay soo dhaweeyo qayb ka noqdo marka walaal aad baa ugu faraxsanahay barnaamijkan okay barnaamijkan kullee dad badan waxay yiraahdeen oo wadanka jooga barnaamijkan Soomaaliya ku habboon yahay in laga bilaabo marka aniga waxaan go'aansaday maadaama wadanka aan joogo barnaamijkan inaan haatan bilaabo qofkii ugu horeeyay shabaab aan aqoonsan barnaamijkan qayb ka noqda oo nasiib u yeeshaa waa ku faraxsanahay walaal macaan barnaamijkan aad iyo aad barnaamijka hambal yaa leeyo marka adiga galabta yani qofkii ku tijaabina aan ku wacana artay tijaabisid walaal waxaan tijaaminayaa oo galabta aad ii wacaysaa saaxiibkay Maxamed Deeq oo ba halkan jacaylkayga baa ii wacaysaa marka yani Maxamed Deeq adiga inteesana baasha wada socoteen Maxamed Deeq waxaan wada soconay 4 sano baan isnaqaanay oo wada soconay oo maaragtay Maxamed Deeq iyo anigu aan isheeg wada soconay oo isnaqaanay marka Maxamed Deeq bay u wacaysaa marka Maxamed Deeq yani miyaa ka shakiday ma gaabis u noqday waa ka shakiyay Maxamed Deeq wuxuu noqday gaabis wuxuu istamar badan baa ka dareemay iyo milq badan marka waxa doonayaa galabta inay tijaabiyo ay wacdi marka kullee barnaamijkan wixii haatan barnaamijka dhexdiina hadii wax ka yimaadaan oo kale يعني هادو aan laga qabsan ya ma cidi kuma haysato cidi kuma haysato adiga marka barnaamijka haatan masida yar hal markatiin iwa okay isha markii tawa markiisu waa furato 725 okay asxaabay sida aad u jeedaan gabadhan Caasha la yiraahdaa hello assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة walaal Maxamed Deeq Soomahan qadeequm walaalow waa yar YouTuber Soomaaliyeed oo yiraahdo oo la dhaho Lil Basta marka adiga hadda meel mashquul miyaa joogtaa mise caadi weeyaan waa inaad caadi okay niyo barnaamij wadnaa barnaamijkana waxa lahaa tijaabo jacaylkaaga marka kullee mid kamid ah yani jacaylkaaga ama jeceladaada baa haatan ila taagan
marka gabadhu waxay tiraahday yani waxaan rabaa inaad tijaabiyo jaceylkayga Maxamed Qiiwac marka qoftaasi minaha midoo umaleynaysaa سودوية برنامج ورفاق بسودوية مركوا وأخونا سبتاير سهل ay marka qoftaasi midoo sax umaleynaysaa magaceeda noo sheeg gabadha بقى أنا حليل على حمد حمد هلو walaal xamdu maahay caasho weeye ma garanaysid miya عايشة أقول عايشة حمد وأوها yaa عايشة أقول عايشة هذا حمد مودي حمد لله imooday ma dhagahayga dhawaaqan jirin ku dhawaaqay عايشة أقول عايشة walaal may wixii aan ka dareemayo oo galabta aan tijaabinayo way ii cadaatay inuu kala wad marka hadaan nooca tahay لا إله إلا حي maya hadaan nooca tahay maaragtay uu kala wad abay maxaa u dimisay waxa ugu damiyay wixii aan galabta aan kulahaa ii tijaabi oo ii wac way cadaatay marka waa noo kala dhamaatanaya asaga marka yani haatan asaga maxaa u dirsaa fariin u dirsaa asaga fariin waxaan u dirayaa waxaan leeyahay saaxiib macaan maalinta ku wacnaato waka marka wax ku haray ma jiraan ayaa bay aad ma wasantahay hayaada mudan walaal